iyo bulshada ka socota walaalaha iyaga Soomaaliya ma sha Allah aad baan ugu faraxsanay la joogina dhamaan waan idin soo wada dhaweynayaa anigoo ku hadlay magaca jaaliyada guud ee Somaliland maanta halkan waxaynu isugu nimid inaynu ku xusno xaflad inaga yara daahsan laakiin inagu maanta aynu waqti iyo awood baa u helnay oo xafladaas oo aynu ku xusayno 18 May maanta oo ay tahay 28 May 10 cishun baynu habsaanay wax badan maynaan habsaamin ma sha Allah xafladda barnaamijkeedu maanta uu iska farabadan yahay kulay meel kasta oo Soomaali wax ku qabsanaysana waqtiga baa xiriir noqda markastana waxa la yiraahdaa waqtiga inagu yar taasi aanu uga hortagno waxaanu damacnay in 4 iyo 45 xafladu inoo bilaabanto hadda saacadu xilligay tahay waynu arkaynaa inaynu daahsanahay saas daraadeed kulay barnaamijku isriixi doona halkan waxa aanu ku soo diyaarinay barnaamijkaas oo ay tahay inay qudbado isugu jira qudbadahaas oo dadyow ka socda rag iyo dumarba ka socda Somaliland jaaliyada Somaliland ee Copenhagen ku nool bulshooyinka Somaliland ee Copenhagen ku nool ay noo soo kala jeediyaan waxyaalo kala duwan taariikhdii Somaliland iyo maaragtay halka xaaladdu soo maraysay ku nimid inaynu calankeena iyo wadankeena hantino waxa kale in qudbadaha ku jira saddex gudoomiye xisbi oo iyaguna in yar maanta hambalyeynta maalinta weyn ee 18 May iyo halkay maaragtay arrimuhu inoo marayaan wanaagsan iyo hambalyeyn wax maanta siyaasadda isugu maynaan imanin wax maanta inaynu maaragtay xaaladda wadankeena intaas wadankeena inoogu filan inagu laakiin maanta waxaynu halkan isugu nimid inaynu wada ciidno oo aynu isla faraxno oo aynu xusno calankeena iyo nabadeena iyo dalkeena waxa intaas waa hordhici waxa halkan soo garab istaagi doona in yar ka bacdi gudoomiyaha soo gudoomiyaha jaaliyada guud ee Somaliland ee Denmark waxa weeyaan Master Mahad Faarax baa inoo qudbad yar oo ku saabsan bal hada maalinka maanta iyo sababaha halkan maanta isugu nimid iyo sababaha muhiim u tahay inaynu maalintan oo kala wada weyneyno oo wada xusno dhamaanteena inagoo gacmaha haysana iyo in yar oo guud oo ku saabsan jaaliyadayada iyo talaabooyinkii aanu soo qaadnay ilaa maalinka maanta halkan waxaan sugaaba waxa weeyaan iga raali ahaada wax wal oo maadaama aynu ummad muslima nahay wax wal oo aynu bilaabanaba waxaynu ku bilaabanaa quraanka kariimka quraankaas waxa inoo qaadi doona aadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون جزاك الله خير بانو لeenahay inanka dhalinyarada eedada iyo habartiyo adeerkaba loo yahay waxaan imika sii wadan doonaa barnaamijkeeni intaanu cali mahad mikrofoonka la wareegin waxa kale iyaguna iman doona ururada halkan maanta nagu soo saaciday ee aan la'aantood xafladda maanta aanay qabsoonteen ururadaas oo aanan maanta mid iyo laba ka magac dhabi karin oo aad u badan ma sha Allah ururadaas oo ka soo wada jeeda bulsho ururadaas oo ka soo reer Copenhagen oo ay maamulaan gabdho iyo wiilalba reer Copenhagen inala oo dadka ka soo jeeda asal ahaantoodii Somaliland ururadaas oo maaragtay hawl mug iyo miisaanba leh ka qabta wadankeena mashruucyo fara badan oo aad iyo aad aan laga maarmi karin oo aad iyo aad muhiim u ahna ay inooga fuliyaan wadankeena meelo kala duwan oo wadankii Somaliland kamida ururadaas way noo iman doonaan hadhow toole urur kastaan wuxuu noo soo bandhigi doonaa in yaroo ku saabsan
in yaroo ku saabsan ururkooda oo ayna barayaan ururkooda waxbayaan hadal idinku daalinin halkan waxaan rabaa in garabkayga yimaado Mr. Ali Mahad Faarax oo yar inoo soo jeedin doona isaguna hadal gaaban oo soo dhaweyn iyo isugu jirta khudbad yar oo gaaban oo ku saabsan ururkayga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وسلامتهين رجل دبر دليرية ويلبا إن كلي أنت كراسة معنا ما تفعل هذا وقدومية ورقة كود السومالان إن فرنتي ما أنت إن وحنت على الله إن أي كرب كي تاجنا ورد دمانتو هاوشة مكراس هاي سو أساسي إن ما ترد هالك ما تنو تشوجنو إن كل ورد وكوس النقطة أمانتو يشرفتو ده إيوه بلاد شرفته إنه سيدونه وأنا بحيدونه إن شاء الله تعالى وأنا كوس الله بدونه لكن لا أنتو فرنتي ما أنت هالك منا ولا تشوجين وحندون إن شاء الله تعالى إن دمانتين أنو صعبينه ورد فرنتي ما إن كرب تاعي هرت نفلي إن horta warsa taalid Somaliland waa taalid ay dhamaanteena wala leenahay waa taalid qof kasta oo reer Somaliland oo Somaliland u dhashay oo Denmark degan uu qayb ka yahay la xisaabtan karayo waxa weydii karayo fakar iyo aqal ku darsan karayo waan ku faraxsanahay horta intaan ururka taalid guud wax qabadkiisa iyo wax qabad la'aantiisa aan gudagelin in marka aan u mahad celiyo runtii odayaasha halka fadhiya iyo haweenkaba garabkayga taagan oo runtii matala bulshooyinka reer Somaliland meel joogaanba waxa odayaasha kala duwan ee ku jira Cabdi Kow ka yahay oo maanta nala jooga xisbiyada qaranka maxay ahaydey aynu ku dhisanahay dimuqraadiyadda Somaliland ku dhisan tahay matala wax garadka iyo raga firfircoon maxay ahaydey halkan ka qabtay oo kow ka yahay Jaawac Dir oo miiska ka soo kici waayay maanta aynu sabayno وقدوميهن بشاشة الصومالية ويا رنتي لكن إن شاء الله تعالى سنو يسود ويدونا إن وحن دوني هل كان دوني فرت كفيرو إن تاليد جود في الصوماليين تاليد أودسن إن أي بشوين في الصوماليين ما تجن هرمر كذا يحقبت كذا رنتي إن تاليد إنك أوجدنا تاليد من قدسه كلمة تالد وينك ويا ما هنقول لما جعابي قف لما جعابي يقف كل وحقبة كريه هواي راتي تالد معها تالد وينك ويا قف كسره سمعنا تشوجا أما محي هذي حبيس فرديو أما هنقول ندل يروح براديو كشرة مكراس سكولة أما شغال كشرة أما هنقول قف بيشنا أو شغالي كفريستوي مكراس الناس كشرة قف كسره سمعنا هو وحقول تاني هاي ومسؤول كساري هاي تاليد جود إنه تاجره سي أين وقبسنه حلفات كون كسي قروح بدن سي إنه مجرى هاي إنه وجسد دوينه وسيرنا أما ما هذا القرنكة محي هذي ودي كي تشوجا إيوه أين سي أين وقبسنا حلفات بلاره وكوا وين وهو دلنا كوا وين لو قبت دين معرك سي إنه وسع عشانه إن ومد إنه كدونينه وحقبتك أما اعتراف كان نقطه أو هالنقطة هرمرك يوم جرى ساي دغالها سمعنا هالنقطة لبضبة رنتي وحنوبة هالنهاي إنك أوجد رنتي مدعسو كلي أسكتوم يهان وحن كغيب كلا شر أدو فربض ما كغيب كلا وأنا كغيب كلا مقع سمعنا كغيب كلا هذه النقطة أقواني خبرت إنه ما تقدر نهاية دوني إنه كورنو يهدي إنه وديدي ينبع oo aynu doonino maxay ahayd inay ogaadaan Soomaaliland waxa tahay iyo waxa Soomaaliland laga qabto runtii gudidayda reer Soomaaliland runtii oo maxay ahayd iyagu laftooda mashquulsan qof kasta mashquulsan yahay qof kasta uu shaqo fuulsan buu haystaa hasaahata intii naga soo hadha hadaynu magaraasay aynu isku dayno ama magaraasay aynu ku dadaalno in aynu gaarsiino ama aynu ummadda wax ka doonano runtii qof kasta oo Soomaaliland waa ambassador weeye waa qof matala ama caalamka Soomaaliya ku matala ama magaca Soomaaliya ku matala meel kasta oo jooga waxaan ogahay ururada reer Soomaaliland bulshooyinka reer Soomaaliland ka shaqeeya dheer maarag maanta 2022 iyo 9-dii way kala duwan yihiin maanta waxa jira dhalinyaro runtii soo kacday waxa jira dhalinyaro xabartay oo jaamacadaha ku jira waxa jirta dhalinyaro shaqooyin fiican oo haysto oo maxay middle class ka dheer maarag ah oo runtii la oran karo waa kuwii u noqon lahaa ambassador u noqon lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliya u noqon lahaa waa kuwii aynu taageero iyo magaraasay iyo maxay ahaydey dhiirigelinba inaga maartay inaga mudan inagu haddii gacmaha qabsano haddii reer Soomaaliland haddii gacmaha qabsano oo aynu nidhaahno maxaynu u baahanahay reer Soomaaliland maxaynu u baahanahay kow
waad arkaysaa kadib laga soo galayay waraaqaha boardka gidaarka ku qornaa oo ku qornaayeen okong waxay heday ururka informationkiisu ay ku qoran yihiin micnaheedu waxa weeye oo ugu talagalnay insha Allah taala qof kasta reer Soomaaliland hadduu iska diiwaan geliyo jaalid guud dheer maarag dhammaanteen ama urur gaar ah aynu qayb ka noqono ama xisbadanu ka noqono ama odayaan noqono ama dhalinyaro noqono waa waxaynu wala leenahay weeye waa waxaynu xalfada balaan ku qabsan karino weeye laga yaabo inaan wax kharashan isweydiinba maanta ANC iyo maalinta kale doonayna cid cusno aynu raanoon akoonka inooga soo saara ila way nagu jirtaay yaana ay waxa laba qof aan isweydiinba taasuna waxay ku imaanaysaa kaliya uun haddii inagu bulshahan jaaliyadahan aynu garab qabsano ay ku imaanaysaa haddii taa halka kaga baxo xoojinta ama maxay ahaydey saboorka ay doonayaan insha Allah taala in dhamaanteen saboorno aanu gabaas qabsano haddii taa kaga baxo wadanka dheer maaynu deganahay sida la wada socotaan wadamada isku yiraaho marka arrinta Soomaaliland laga hadlayo waa wadamada runtii ugu horeeya xafiisna ku leh maxay ahaydey Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ah oo maanta fadhiyo William Mathiesen fadhiyo oo waxa la arkaa ama Sweden ha noqoto ama Norway ha noqoto ama Finland ha noqoto la moodo madaxdeenu hadii jeer inay tagaan oo maxay ahaydey ka qayb qaataan marka dheer ma laga hadlayo wax qabadka dheer maarag intooda uu ka baday xafiis kaliya oo muuqda oo maxay ahaydey caalamkooda ku soo wareeyay ayaa runtii wax kasta ka weyn dhaqaalaha dheer ma ugu horeysa in aragteen mooye waxaan la yiraahdo Somaliland Development Fund idii runtii saxaday hormuudku ahayd 2012 Christian Forsbach dheer maarba wasiirka qorsheynta qaranka dheer maarag ayuu ahaa runtii ninkaas uu ahaa marka dheer maarag oo wadamada la moodo runtii inay garab taagtay Somaliland waa wadamada u baahan in la xoojiyo dhawaan wax wala ogtiin in la soo magacaabay safir wakiil dheer maarag uu fadhiisto doona insha Allah taala inuu dhamaanteen oo iska garab taagno oo aynu muujino dheer maarag muhiimadda leedahay aynu u baahanahay waa dheer maarag waa wadanka kaliya ee nuwarka bakaraas ay nuwarka laan kamidka ah ee xafiis Hargeysa ku leh inta kale dhamaantood waxay ku diraan ama waxay xafiisada ku yaala maxay ahaydey Nairobi ama Ethiopia hadda doonaysa inaad si toos ula hadashid ama barnaamijyada Soomaaliland laga wado in iyagu ay ka war doontid wadamada kale tagaysa jaarka ah laakiin waxa halkan ku leenahay hadalka runtii ma doonay halkan inaan ka xoog uga sii dheereeyo waxaan hadhow insha Allah taala ku soo gudan noqon doonaa aynu xisbiyada markaynu ururadan reer Soomaaliland wax qabadkooda ayaan gadaal ugu soo noqon doonaa insha Allah taala oo wax badan si faahfaahin doona intaas wax doonay insha Allah in horumar iga noqoto waxay nala jooga oo magaalada nala jooga wasiirkeena qaaliga ahaa Cabdi Baashe oo sugan nagu soo socday insha Allah taala oo dhawaan soo gaari doona hadii nafta noo tahay insha Allah taala wasiirka hore qorsheynta qaranka oo runtii ah hormuudka ama wax garadka reer Somaliland isagana insha Allah taala waxaan rajaynayaa inuu isfaaw soo dhaweyn hadhow makiinooyo hadii nafta noo tahay insha Allah taala dib u isku soo noqon doona assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحا مهم إنه إن عبد باشا أما وسيركي هراء قرشينتا أو أي أهيد وابا كاسم كسوق ما شاء الله ما شاء الله right on time مي أورنشرين ضد كإنجليزي كوهاد لا